bal sawirana lagu wareeriyay sawiraan kula galo sawiraan kula galo sawiraan kula galo waxaan sidii hadeero dhan fakaro wartalow sawirkan muxuu tarayaa marka haddana waxaan sidii war mala Facebook ibu taskiye beena ka yahay taskiyada ma taqaanin deynta Sheekh Cabdirashiid sala sawirto inaad abla ku tiraado Sheekh Cabdirashiid baan isnaqaanayo sheekayga waa ka sawirkiisiina waa isagoo wadada marayana waad isku dhinac sawirtaa ama gaadhiga fuushan waa taskiyaan waxba ka jirin imikaba intaan lagu qarxinin warka waa wada sheegaynaaye taskiyaadka beenta ha la joojiyo sawirna waxba ma taro al-aslu inuu xalaal yahay inuu xaaraan yahay muran ka taagna laakiin iminka waxay noqotay masaajidka safka adigoo ku jira sawir laga qaadaya ilaahay hor taagan haddaad daqaaqdo waa lagu sawirayaa qof baa meel kasta leh waxba sawiraya war sawirku aakhirana inuu khatar ban noqdo waa cabsi ayaa ku jirta adduunkana wuxuu taraya garan maayo wuxuu tarayo nin wadaadu halkaas ka marayo aad intaad si dhinac taagtay sawir qaadatay waxba tari maayo bale waxaan is leeyahay sidqiga aan sheegaya wuu khilaafsan yahay maca saadiqiinta la yidhi run inaanu noqonin bay u badantay marka waxaan idin leeyahay ilaahay cabsidiisa badiya diintiina ku dhaqankeeda badiya dad muslim oo soo jeeda ahaada meeshan aad joogtaan urursanaada gaalada ilaahay waxba inagama raaciya waa khatare saxaabadii soo hijrootay timi xabashida in mid ka finiinayso ma ogidin cubaydallaahi ibnu jaxsh cabdillaahi ibnu jaxsh walaalkii waxaan rajaynayaa mawmu xabiibu ninkeedii ahaa calaa kulli xaal nasaaraduu raacay haddiiba ay suurtagal noqotay rag saxaabo soo hijrooday in wax ka finiinaan dee innagu khatar weyn baynu ku jirnaa daynu dhul gaalo iska fadhiisanno barriisanno khatar weyn baynu ku jirnaa khatartaasi waxay yaraanaysaa sida doctor cali sheegay haddaynu inagu xagga kale u wadno haddaynu inagu dacwaddan iyo diintan xambaarno oo wadno wax weynna kuguma aha يعني waxa laga yaabaa inaad tiraahdo aduma sheekh baatay dadku sheekha islaamiye bisaan idin sheegaya doctor Jaafar Idris sheekhan gaboobay Suudaaniga ilaahay caafimaadiyo nin sagaashan ka dhaafo culimada waaweyn muslimiinta kamida filosofna ayaa wuxuu yiri wuxuu ka waramayaa ducaada dahsoon ee aan cidina ogeyn oo uu leeyahay ducaada dahsoon hal la caawiyo marka laba nin buu ka waramay oo Mareykanka jooga mid wuxuu yiri waa taksiile taksiga wuxuu dadka kaga soo qaadaa airportka magaaladu keena taksigiisa marka cidi soo fuusho ayuu quraan cid macaan u saaraa Mareykanka iyo dadkaas waa dad hadal badan oo warka iskala ka bilaabaya European-ka مثلا Scandinavian ko kale guriga kugu xiga waliga kula hadlimaya ka ku jira wadada aamusan aan waxba ku darsanin laakiin qoladana af Ingiriisiga ku hadasha wadada aad u furfuran oo dadka iskala qabsada markuu quraan cid macaan saara bay yiraahdaan heestani maxay ahayd isagu su'aasha uu muu rabay inay la weydiiyo waa cod macaan yee ninkan heestu qaadayo markaas wuxuu bilaabay inuu yiraahdo it's the last revelation from God waa waxyiga ugu dambeeyay samada ka yimaada halkaas uu ka bilowdaa marka warkiisa 850 qof buu kursiga dambe iyagoo saarana shahaada u qabta 850 qof 6 bilood gudahoodna weeyaan maaha waqti badan 6 bilood gudahood buu 850 qof oo kursiga dambe ee taksiga saaran waa shahaada u laqibay kalabaad uu ka warramay waxa weeyaan nin soo islaamay oo aan aqoon diineed oo badan lahayn muslimuun iimaanku galayo iimaanku ka dhab yahay niman carbeed oo muslimiin oo masaajidda ku tukadooda waryaade war dadka naarta ku socdaane kaalayo raaca dadka ana soo qabanaya idinku kaan idin keena wuxuu sheega maalinba laba dadka masaajidka jooga af arabigana yaqaan ayuu ka xeeyaa isagu faatixadu dirka ku akhrinaya wadada dadka maraya ayuu sortaaga ma rabtaa inaad islaamka wax ka ogaato
dee waa bini aadama wax walba oo ku dhaca qaar waxay dhahan war naga banneey iska daaya buu yidhaha isagaa diiday ka yidhaahda islaamku muxuu yahay gacantuu qabtaa wuxuu yidhaha warkan wuxuu sii sheega dabeetana isagu waddadu ku noqdaa isagu dadkaa waddada maraya ee laga khajilay islaamku qofkaasaad iskala hadli ayuu indha caddays ugu tagaa unoo yidhaahdaa war diinta wax ma ka rabtaa inaad ka ogaato kii yidhaahdaa muxuu yahay gacantuu qabtaayo nin carbeed halkan taagan buu geeyaa wuxuu yidhaahdaa diinta u sharax waxaan uga dan leeyahay qofka bini aadamkii hadduu ku talagalo inuu wax qabto waxbuu qaban karaa laakiin aan run isu sheegnay ma jiraan niyadaa waddankan cid ku timi bal gacanta taag nin markuu waddanka imanaya islahaa dadka aad islaamisid mise waxaynu u badannay nin islahaa cilmi ka qaado jeebabkooda baadho in lacaga ka sii qaado oo ka baacmishtare wax kale inuu soconnay war haddaba tii kalena si ay idinku asaxdo oo iyada lafteeda aan aakhire laydiin weydiinin tanna ku dara dadkan adigu xilku kuma saaro qofku inuu islaamo iyo inaanu islaamin ilaahay baa taa ku shaqo leh adigu inaad u sheegtaa ku saaran hayse odhan waa lagu diidi iyo waa kan iyo falsafadna uma baahna iyo wax waaweyn oo aad ka warranto uma baahna waar ilaahay cirkan iyo dhulkan baa abuuray baa rasuul soo diray rumee intaasoo adiga kaaga baahan tahay philosophy iyo wax kaloo waaweyn dadku waxay sidhahdaan talow dadku markuu islaamayo maxaa loo sheegaa waxaa loo sheegaa war laa ilaaha illa allah dhibis wax kaloo badan uma baahna ciddii aqbasha ahlan wasahlan gee meelaha islaamka lagu barayo ciddii ku diidda xoolade kumaad lahayna iska dhaaf hadduu ku diido khalaas iska dhaaf adiguna markaa inaad badbaadaabay u badantay oo qof soo islaamo xaqa haleelay hadduu kuu duceeyo oo uu garto ninkii naarta ka badbaadiyay inay tahay ducadiisa in alla ku aqbalaabaaba laga yaaba oo aad kaa ducadiisoo saadiqa ku badbaado marka dee warka intiisii badnayd culammada idiin sheegtay anu waxaan idin leeyahay ilaahay ku xidhnaantiisa badiya baryadiisa badiya cabsidiisa badiya wax kasta oo u baahantihiin isaga albaabkiisa ka raadiya biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaahay bal wuxuu isku sifeeyeyde waxana anaa haysta wax walbana waan awoodaa alghaniyu lkariimna waan ahay alraxmaan alraxiim ilaah deeqtoon oon waxaan waxba u taraynin naxariis badan karam badan oo deeq badan jawaad ah wax kasta bixiya idan ilaahay baryadiisana badsada cibaadadiisana badsada diintana ka run sheega dee ducadaynu isu ducaynaana waa ilaahay inuu aakhiro meel fiican inugu kulmiyo jannadiisa inuu nagu kulmiyo xisaabta iyo ciqaabka in alla subxaanahu wa tacaala inaga fudaydiyo rabbi kuwa cafiya inuu inagu daro intaa kadib idinkana waa idiin mahadnaqaynaa sidaa noo maamusteen ee noo soo dhiirigeliseen dee kolley qofka halkan fadhiya hadday 4 qof soo hor fadhiisatana waa yara niyad jabaa haddii meesha la soo buuxiyana wallahi halkan kusoo noqnoqoshay leedahay buu yidhaahdaa oo dee wuxuu is idhaahdaa dadku niyadday u dhisayaan idinkuna niyaddaa noo dhisteen imaamka iyo gruubkiisuna waana dejiyeen oo si fiican bay noo dejiyeen safiir xigeenkuna dee wuxuu naga keenayba v I b du naga soo saaray halkii neeriboodku naga soo saaray niman ilmo xaaji axmedina madaxay nagu qaadeen oo waana sidaan weli cidi dhulkana ma dhigin marka ilaahay waxaan ka baryayaa intiinaba in ilaahay khayr ugu bedelo wixii camale wanaagsan ee geysateenna in ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka wada aqbalo annagana waxyaga inaan ilaahay sumca iyo riyaa ka dhigin ee wuxuu aqbalo annaga ugu baahi badan aqbalaade inamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin wax waa la sheegaa laakiin inta ilaahay xaggiisa laga aqbalaa waa inta ahlu taqwa ay sheegaan ee ilaahay inuu naga dhigo kuwa kelmadooda aqbalo sala allahu calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما دام ليسوا دردار مايو علماء مشايخنا أيدين دردار من وحير دلنيردا ما قرنا يهدي إن شاء الله قردر يقومها لكن سحواي إن بن فيليا وحرب إن ودردار مك